madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ahna murashaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbul xaakimka kulmiye ayaa maanta taageerayaashiisa magaalada Saylac kala qayb galay isu soo baxa maalinta labaad ee ololaha xisbiga kulmiye kuna aadan doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland banaanbaxan oo ka dhacay xarunta wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badaha ee magaalada Saylac ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saylac kuwa degmada Saylac mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolkaasi wasiir ku-xigeenno taageerayaal aad u tiro badan oo dhammaantood ku labisnaa astaanta labada midab ka kooban ee sumadda u ah xisbigaasi kulmiye goobtaasi ayaa waxaa ka hadlay taageerayaal aad u tiro badan oo dhammaantood hadalkoodu iskugu soo biyashubanayay taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye gaar ahaan maalinta codbixinta ee 13 November waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta maantana murashax buu loo yahay reer Saylac oo soo ma dooranayno oo isku maraacin kulmiyaha guulaysto 13 November waa maalinta codaynta kaarka codbixinta gacantiisa qof walba ku haysto goob walba waa la arki doonaa cidii codaysa iyo qofka ay codaysay ballanteenu waxa weeyaan waa Saylici xisbiga kulmiye waa xisbi ka weyn xisbiyada kale isaga ugu da'weyn isaga xuquuqii haya waa xisbigii wax qabadka qasnadiisa waxa ka jira wixii uu qabtay baa ka buuxa horta xisbiga baa wadana waxay nala milah oo sideedii ma jiro kuwa kale waa mala awaal ay u codeeyaan xisbiga kulmiye taasay ku guuleysan doonaan murashaxa Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka musharaxa madaxweyne ku-xigeen Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici bulshada reer Saylac waxaan rajaynaynaa inay si fiican maalinta uga qayb galaan waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Saylac barasaabka gobolka Salel iyo gudoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye ee gobolkaasi Salel xisbiga kulmiye wuxuu soo shaqeeyay muddo todoba Cabdiraxmaan Saylici oo musharax madaxweyne ka yahay waayo aragu yahay 7 sano oo xisbi soo hayay tirada xuquuqda soo talinay waayo aragu wuxuu yahay maanta wixii ka dhiman ayuu garay oo dhamaystiraya walaalayaal intii gobolka waxyaabo fara badan oo horumarkiisa ah inala qabtay inkana u ballan qaaday in uu waxyaabo fara badan si rasmi ah wax inooga qabto gacantiina ka hayna waa inaan ogaanaa dadka Cabdiraxmaan Muuse Biixi Cabdiraxmaan Saylici oo dalka iyo dadka la yaqaana waa inaan ku ogaanaa gacanteena waa inaan ku ogaanaa Soomaa intaasi kadib waxa xafladaasi hadal kooban ku soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ahna murashaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbul xaakimka kulmiye mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici dabaaldega ma ismuujinta xisbiga kulmiye maanta ka dabaaldega dhammaan qaranka Somaliland milay caday la ascaarada la ceelgaabo waxaad maanta nasiib hesheen aniga madaxweyne ku-xigeenka qaranka isla markaana musharax madaxweyne ku-xigeenka maanta u taagan doorashada in halkan maanta ay ku imaado alxamdulillah aniga aad baan u faraxsanahay aniga ku dhashay magaalada quraan ku bartay magaalada iskuulka ka galay oo wax gaar ay leedahay runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay Maxamed Cawaala Daahir Hon Cable TV magaalada Saylac